maalmihii madooba ee soo maray Soomaalida ku nool caasimadda waddanka Sweden ee Stockholm July 2015 waxaa dil toogasho ah loogu dilay gudaha magaalada Stockholm Allaha u naxariistay Ismaaciil Maxamed Aadan oo 19 jir ahaa 25 July isla sanadka 2015 habeenun kadib waxaa isna toogasho loogu dilay gudaha magaalada Stockholm Allaha u naxariistay Maslax Xasan Warsame oo 17 jir ahaa Soomaalida waddanka Sweden ama caasimadda Stockholm waxa ay si wada jir ah ugu sameeyeen labada dhalinyarada aas qaran oo hal maalin la qabtay sidee looga dareemay dhacdadan guud ahaan waddanka Sweden maxaa sababay dilalkan ay la kulmaan dhalinyaradii mustaqbalka ee Soomaaliyeed maxaa lagaga hortagi karaa dhacdooyinkan sii kordhaya marba mar ka dambaysa ee ay la kulmayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool wadamada Western waxaa noo muuqda iyagana kuwa ka yaryar intaas runtii aan waliba da'dii iskuulka ka bixin ilaa 16 ilaa 19 kuwa hadda istileena de hamnar i dåliga kretsar med andra kriminella och begår brott. Det är en liten kärna bland alla de positiva människorna och ungdomarna som قدالان u laabano war xaafadan maxaa dhacay xaafadan waa nugna isbedel ku dhacay waxa ku dhacay bulsho isbedel bulshadeeda ka dhacay in sharciga xirtaraarnay waxaanu sharcigoodii wax gudban yihiin waayo hadii waxaan sharci u haystaan way kula isticmaali lahaayeen qaabka falxumada ee Soomaali gacanta isku dhimatay ilmo yar yar oo qaarkood qaan gaadhin laakiin 17 jir ah xanuunkeeda lahayd marka waa jirtaa waxaan nahay horta wadan burburay nadayna Soomaali aynu nahay dhibkana meel walba oo ay jaariyada Soomaaliyeed degantahay waa ka jiraan ilaahay waxaan ka baryaynaa carruurtana Allah noo wada hagaajiyo laakiin aad ka fiiriso wixii wadanka ka jiray miraheedii way waxaynu guranaynaa kala soco barnaamijka sahan iyo dhacdadii madoobeed ee magaalada Stockholm Kalsan TV Gordon